kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal halkaani waa NTN TV ku soo dhawaada warkeena duurnimo qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Baxdo ee Galgaduud nabadoon Cabdiqani Xasan Xuseen oo lagu dilay masjidkii hore loogu dilay aabihiis ciidamada dawladda oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan safiirka dalka Mareykanka oo ka jawaabay hanjabaadda al-shabaab ee xukunka Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya oo fariin muhiim ah u dirtay al-shabaab daawadayaal haatan u diyaar garooba warkeena oo faahfaahsan waa 17 bisha 6 sanadka 2022 haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkeena oo fidsan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo al-shabaab saaka ay ku qaadeen deegaanka Baxdo oo 90 kiiloomitir u jira degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana la soo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa istaagay waxaana dib deegaanka uga baxay dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya meydadka tiro ka mid ah raggii weerarka ku qaaday deegaanka Baxdo ee ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigay meel fagaaro ah sidoo kale dagaalka waxaa ku dhintay dad isugu jira shacab ciidamada deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka ku qaaday Baxdo balse ilaa iyo hadda lama hayo tiro rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha wararkii ugu dambeeyay deegaanka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in hadda xaaladdu degan tahay isla markaana ay halkaas soo gaareen ciidamada gurmadka ee ka tirsan daraawiishta Galmudug nabadoon Cabdiqani Xasan Xuseen Waloore oo kamid ahaa nabadoonada gobolka Mudug ayaa xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kooxo hubeysan ayaa nabadoonka ku dilay xaafadda Garsoor ee waqooyiga Gaalkacyo xilli uu ka soo baxayay masaajidka Macmuur oo salaadii cishaa uu ku soo tukaday goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxahaasi ay ka baxsadeen goobta kahor intii aanay soo gaarin ciidamada amniga bishii Agoosto ee sanadkii 2011 waxaa isla masaajidkan lagu dilay aabihii nabadoon Xasan Xuseen aw Maxamed Waloore nabadoon Cabdiqani Xasan Xuseen Waloore ayaa kamid ahaa waxgaradka gobolka Mudug ee dhexda u xirtay xasilinta iyo masaalixda magaalada Gaalkacyo laamaha amniga ee gobolka Mudug ee Puntland ayaan weli ka hadlin dilka nabadoon Cabdiqani Waloore oo imaanaya xilli dilalka qorsheysan ay maalmihii tagay ku sii kordhayeen magaalooyinka Puntland subaxnimadii Talaadada waxaa la dilay taliyihii saldhigga booliska magaalada Qardho Cumar Hiiraan Kaatuun iyadoo la sheegay in ay dilka ka dambeeyeen kooxo hubeysan oo cabtooy ah sida uu warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Cabdi Siciid Cismaan kama bixin Cabdi Siciid balse waxaa la sheegay in xilliga la dilayay taliyaha uu ku jira howlgal shaqo gaar ahaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa NTN TV ciidamada dawladda ayaa saaka howlgal wada jir ah ka wada deegaano hoostaga degmooyinka Matabaan Maxaas iyo Beledweyne ee gobolka Hiiraan howlgalkan ayaa waxaa horkacaya taliyaha guutada shanaad qaybta 27 Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay waxaana ku heliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ciidanka howlgalka wada ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta deegaanka Jiracle oo fariisin u ahayd al-shabaab sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha guutada shanaad qaybta 27 Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay boqolaal kamid ah ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaano maxawisleyda oo wata gaadiid dagaal ayaa saaka lagu arkayay deegaano dhaca waqooyiga Beledweyne safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in aysan al-shabaab u suuragali karin in ay la wareegaan Soomaaliya si lamid ah Taliban oo la wareegay Afghanistan danjira Larry Andre oo ka falceliyay wareysi laga qaaday hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab Mahad Karate oo sheegay in ay rajeynayaan in ay la wareegaan xukunka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay aragti buunbuunin badan inkastoo danjiruhu uu sheegay in al-shabaab ay saameyn ku yeelatay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyagoo u maraya lacagaha ay ka qaadaan ganacsatada
wuxuu sheegay in Soomaaliya ay leedahay saaxiibo amni oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Turkiga, Midowga Afrika iyo dalalka dariska, kuwaas oo uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Soomaaliya ka difaacaan khatar kasta oo ka imaan karta Al-Shabaab. danjiraha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay Soomaaliya leedahay ciidamo awood u leh in ay ka difaacaan Al-Shabaab, kuwaas oo uu xusay in ay haddana fuliyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. la taliyaha amniga qaranka u qaabilsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka hadlay fariinta hanjabaadda ah ee ay soo direen ururka Al-Shabaab. Xuseen Sheekh Cali Damuuma ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan ficil muslim ku dhaqmin, sidaas awgeedna laga rabo in ay shacabka u diirnaxaan. la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaa ku baaqay in albaabada ay u furaan dadka abaaraha haystaan sidii gurmadka loo gaarsiin lahaa. hogaamiye ku-xigeenka Al-Shabaab Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Mahad Karatay ayaa ku hanjabay in ay doonayaan sidii ay u qabsan lahaayeen dhammaan dalka Soomaaliya. daawadayaal, intaas waxaa nooga dhan warkeenii duhurnimo. intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.